aynu bal ku falanqayn doonaa oo aynu ku feerin doonaa waraaqdii ay soo saartay dawladda Mareykanka maxaa ku qornaa maxaa inooga baxay oo xog ah miyaa lagu qanci karaa warkii ka soo yeeray dawladda Mareykanka iyo waliba falanqayn kale oo qoto dheer oo markaasi aan doonayo ummadda inaan wax ku tuso ama aan wax ku baro maadaama sida ummadda loo jahwareerinaya ay tahay runtii san la taaban karo ayaa waxay noqonayaan waa Africom oo kaashanaysa dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa weerar ku beegsatay iibiye ama nin ka shaqeeya maxaa la yiraahdaa hubka inuu markaasi ka iibiyo ururka al-shabaab 13 September ee bishan hadda aynu ku jirno marka nin dealer ayay yiraahdeen marka waa qof iibiye hubka isla markaasna ururka al-shabaab ka iibiye sida ay waraaqda ku qoreen waxa sidoo kale ay ku sheegeen isla waraaqdan in meesha lagu dilay ay tahay agagaarka magaalada Barand ee gobolkaasi Sanaag waxay yiraahdeen Mareykanku sababta aynu u dilnay ninkan dealerka ah ayaa waxay tahay in marka hoos u dhigno bay yiraahdeen awoodda kooxda al-shabaab taasoo markaasi dhibaato ku ah ama handadaad ku ah dhulka hooyo ay yiraahdeen ama dhulka Mareykanka iyo waliba muwaadiniinta Mareykanka ee qurbaha markaasi jooga ayay kooxdan iyo maxaa la yiraahdaa al-shabaabku ay caqabad ama argagax ama cabsi gelin ay ku hayaan marka si aynu u yarayno kooxdaasi dhibaatada ay dalkeena iyo dadkeena ay ku hayso sida darteed ayaynu u beegsanay ay yiraahdeen ninka dealerka ah marka waxay waraaqdu ina tusaysaa sababta ay Mareykanku u dileen caaqilkaas inaysan ahayn dan Soomaaliyeed in Soomaaliya amni laga dhigo in Soomaaliya loo hiilinayo in la doonayo in la xoreeyo waxa ay dhan ma waa un danta Mareykanka sida waraaqda markaasi ku qoran dilkan lagu dilay nabadoonka Allah u naxariistay markii aad si waaqici u fiiriso oo kooxaha ay sahahaya ee qabyaalada iyo siyaasadda isku riixayay iyo emotionka aad meel iska dhigto dilkaanu waa dil aanan waligii Soomaaliya aanan horay u arag waana dil loo baahan yahay in qof kasta oo Soomaaliya oo damiir leh inuu ka qayb qaato waana idin sababayn doonaa markii aad muuqaalka dhamaystaan waxyaalaha tuunka muujinaya ee waraaqdan ku qoran ayaa waxay tahay dawladda Mareykanku waxay ka hadashay dhacdadan markii 4 maalmood ay ka soo wareegtay maalinkii la dilay caaqilka waa waraaqdii ugu daaha badnayd ee Mareykanku ama Africom ay soo qoreen intii Soomaaliya ay duqeymaha ay ka wadeen maanta markay duqeeyaan ugu badnaan saacad ama 2 saac ka bacdi ay dawladda Mareykanku sheegi jirtay inay duqeyn ka geysatay gudaha dalka Soomaaliya waxa su'aal ah marka maxay tahay sababta ay Mareykanku ola daaheen ilaa 4 maalmood kadibna ay u sheegeen inay weerarkaas ayagu ay geysteen why it takes too long waa su'aal waa meesha ugu horeyso arkayso inay wax badan isku dulhuursan yihiin isla markaana loo baahan yahay in la kala guro waxa sidoo kale aad arkaysaa meeshan kuma qorna ninkii la dilay ee caaqilka Allah u naxariistay dealerku kee aha ma Faarax buu ahaa ma Yuusuf buu ahaa ma Maxamed buu ahaa ma mid kale oo aan aqoon baa iska la dilay ilaa hadda xataa ma naqaan ma laba weerar bay ahaayeen laba nin oo kala duwan baa la beegsaday ma naqaano ma hayno markaysa waxay muujinaysaa marka in Mareykanku ay ka cararayaan sheegashada caaqilka inuu yahay ninka dealerka ah ayaa meeshan ka muuqata marka si taxaddar leh aad u akhriso shaabadaynta in la shaabadeeyo ama Mareykanku ha shaabadeeyo ama qolooyin kale oo canaasir ah ha shaabadeeyaan walaalkan la dilay ee nabadoonka ah in la yiraahdo al-shabaab u shaqeynayay nin ka mid ah ummadiisa oo aan dambiile ahayn oo aan xogta loo hayn oo aan cadayn loo haynin oo meel loo raaca aan lahayn waxaan isleeyahay waa eedayn aan caga badan ku taagnayn cidii eedeynta keentana waxa looga baahan yahay inay cadayso ayaa looga baahan yahay marka waraaqdan ka soo baxday Africom ee 2 jeer lagu xusay magaca dawladda federaalka ee Soomaaliya la yiri in markaasi lala sameeyay waxa loo yaqaano coordination la sameeyay in lala coordinate gareeyay ama in wada shaqeyn ka dhaxaysay markii laga hadlay weerarkaasi arintaas Puntland ma ka dhigaysaa mid aan dambi lahayn waxa federaalka oo kaliya miyaa loo riixayaa jawaabtu waa maya waana kugu qancinayaa inay jawaabtu ay maya tahay 2 daqiiqo ka bacdi haddaan wax yar dib idin celiyo bishii February kowdeedii 2025 markii ay ciidamada Mareykanku ay ku soo biireen dagaalkii ka socday buuraha Calmiskaad ee u dhaxeeyay ciidamada maamulka Puntland
iyo kooxdaasi argagixisada ah wuxuu madaxweynaha Mareykanku uu soo saaray waraaq uu kaga hadlayo weerarkaasi isla markii uu weerarku u dhacay ayuu madaxweynaha Donald Trump soo saaray waraaq isla sidoo kale markii ay Africomna soo saareen waraaqda markii aad fiiriso waxa ay ku bilaabanaysaa markii aad fiiriso waxaad arkaysaa marka in midaan hadda ay soo saareen iyo midaasba inay isku wax ku bilaabanayaan oo ay ku bilaabayaan in ay markaasi iskaashi ay la sameeyeen dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku qoran oo waraaqdii soo baxday February 1 2025 iyo midaan kale ee soo baxday shalay oo looga hadlayay dilka caaqilka bilowgooda marka aad fiiriso waxaad arkaysaa inay isku qaab u bilaabanayaan mar walba oo Africom ay soo qorayso warbixin ku saabsan Soomaaliya waa standard caalami ah oo Mareykanka u yaala inay ku bilaabaan inay yiraahdaan waxaynu la kaashana waxaan nagala shaqeeyay waxaan nala ogaa sida loo fasiro in lagu bilaabo ereygan in lagu bilaaba coordination-ka ah ayaa waxay muujinaysaa waa standard caalami ah oo ay isticmaasho Africom oo aan la bedelin way waxa wixii waraaqayni marka soo saareen oo Soomaaliya looga hadlayo kulligood halkaas laga bilaaba marka arintaasu arin Puntland ka dhigaysa mid aan shuqul ku lahayn mid xamar bas loo xawlayo sida ay dadku u dhigayaan way ka duwan tahay standardkan waraaqaha noocaan ah laba meelood bay very common ka yihiin waa qaybta ugu horeysa oo noocaan lagu bilaabo iyo qaybta ugu dambaysa yiraahdaan details badan ma bixinayno maadaama ay shaqadu wali socoto marka taasna way ku soo qatimaan oo ma bedelaan midaan horena way ku bilaabaan oo ma bedelaan marka waa very common dhexday wax ku daraan laakiin meesha ay ka bilaabanayso waraaqda iyo meesha ay ku dhamaanaysaba waa standard aysan Mareykanku bedelinin way u sameeyaan it very simple dawladda Mareykanku waxay aqoonsan tahay oo kaliya federaalka dawladda federaalka ee Soomaaliya ay aqoonsan tahay ma oran karto siyaasad ahaan waa faragelin qaawan Mareykanku uu yiraahdo Puntland baa igala shaqeysay weerar cirka ah aan ku qaaday gudaha dalka Soomaaliya arintaas waxay ka dhigan tahay inay Puntland ay dawladda Mareykanku u aqoonsatay dawlad madax banaan Mareykanku marka saama sameeyo diblomaasi ahaan bay luqad qaldan u tahay marka arinta standardka ah ma ahan arin wax ka bedelaysa kiiskan meesha yaala sidoo kale markii aad fiirsan waraaqdii ay soo saartay isla Africom 23 Agoosto 2025 bilowgeeda markii aad fiiriso waxaad arkaysaa inay sidoo kale isla sidaan ku bilaabanayso qaybteeda dambana ay isla sidii ku dhamaanayso marka dadka doonaya inay arintan ka dhigaan inaan Puntland waxba la weydiinaynin ayagoo waraaqada akhrinaya meesha ay federaalka ay ka qoran tahay waa dad aan aqoonin waraaqahan waa dad aan hore u akhrin jirin oo aan aqoonin standardku uu Mareykanku wax u qortaa waa inta maalintan uu Trump hadlayo uu leeyahay waxaynu weerarnay oo aan laynay saraakiil Daesh oo February 1 ahayd Saciidin waraaq buu soo saaray uu ku sheeganayo inuu asagu Mareykanku kala shaqeynayay oo uusan Xasan shuqul ku lahayn weerarkan markaysan sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud intuu hadlay buu aniga la igala kaashaday marka February 1deedii waxay Xasan iyo Dani isku hayeen ma ana la tashaday dadka daba socda ee siyaasigu uu marin habaabiyay waxay la kala safnaayeen Xasan iyo Dani bay la kala safnaayeen qaar ba waxay soo qorayeen oo markuu la tashanayo Xasan Sheekh Maxamuud Donald Trump abgaal ba qaar ba soo qorayeen qaarna waxay soo qorayeen Xasan Sheekh Maxamuudka filawr dhigley xalay ka qaxay miya Puntland wax laga weydiinaya Puntland Saciidani baa mas'uulka abi soo qorayeen ayaga hadda maanta kala wareegay ku ishara lahaa Xasan laba tashan ayaa maanta le Xasan baa mas'uulka loo tashan ku ishara lahaa anaga nala tashan waxay leeyihiin Imaaraadka iyo Dani baa dilay odayga because of hadba hooska dhinaca uu jiro iyo sida uu siyaasigu u hadlo bay fiiriyaan wax kale ma yaqaan taa marka waa inta dhanka kale markii aanu fiirino dawladda Mareykanka waxay sanad walba dhowr jeer oo kala duwan ay soo saartaan liisas dheer oo ay ku cunaqabateynayso dadka Soomaalida ah ee hubka sharci darrada ah markaasi ka shaqeeya oo ay leeyihiin waxay u gacan galiyaan ururka Al-Shabaab